arrimaha gudaha iyo qof kasta oo maxay ahayd halkan lagu casumay nasabka ku fadhiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaas kadib haddaan nahay anaga bulshada rayidka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay shaqo haddayna jirinna waxaan aaminsanahay inaanay dawladdu dhalateen waxa u soo halgamay ama ka shaqayn jiray ama suurtagal Ilaahay baa suurtageliyay laakiin bulshada rayidka Soomaaliyeed waa la ogyahay 28 sano oo dawlad la'aanta waxa ay ka qaadatay ama dalkan ay ku soo kordhisay marka haddana diyaar ayaan u nahay haddaan nahay bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha fakarkeeda waa soo dhaweynaynaa diyaarna waa u nahay maxay ahayday maadaama awalba aan u istaagnay inaan dalkayaga iyo dadkayaga u shaqeyno haddana waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan rabaa waxaad moodaa bulshada rayidka inaanay kaalin weyn ku lahayn maxay ahayd markii la fiiriyo dawladda iyo sida ay u socoto oo aad moodo xitaa bridge-ka inuu kala go'an yahay bulshada rayidku waa dadka ugu mug weyn ma ahan qof iyo laba waa dadka aan hubaysnayn cid doonta ha ahaato ayaa bulshada rayid la yiraahdo hadduu culumo yahay hadduu oday dhaqan yahay hadduu haween yahay hadduu arday yahay hadduu indheer garad yahay waxa waaye dadka aan hubaysnayn aleera bulshada rayidka Soomaaliyeed waa dadka ugu baaxadda badan waa dadka ugu aqoonta badan marka waxaan leeyahay hal laga faa'iideysto maxay ahayd maskaxdooda in laga faa'iideysto anigu aad baan u jeclaan lahaa waan soo dhaweynaynaa qabaqaabada kulankan oo runtii mid muhiim u geesocodka siyaasadda iyo awoodaha dawladda oo runtii loo baahnaa hadda ka horba in la keeno dabcan mawduucyada gadaalbaa laga geli doonaa insha allah balse haddii aan hadalka hordhaca ka geysto awoodaha dawladda oo heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii haddaan la kala xadidin oo aan lagu xadidin qaanuun dastuuri oo runtii aad iyo aad looga fiirsaday dhibta aynu hadda labada sanada soo dhaafnay ku jirnay ee xaggan aynu soconay xaggan aan soconnahay xalkeedu uu sii dheeraanayo sidaa awgeed waxaan ku soo gaabinayaa kolley dowladaha dambe aynu hawsha u dhiganaynaa iyo go'aan qaadashada waxaan aad iyo aad dhammaan ka qaybgalayaasha uga codsanaya in aynu xaqiiqda kala xadididda awoodda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu inay muhiim u tahay horumarinta dowladeenna dadnimadeenna iyo difaaca qarannimadeenna waana soo dhaweynaa odayaal dhaqan ahaan in arrintaa dastuurka iyo qawaaniintu ay si cad u kala xadido haddaan qaanuun iyo dastuurka kala xadidayo awoodaha jirin هذا المكان الحديداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وسير كان وزارة أربعة بدها أولنا وزارة اللبنانة هي مسؤولية الكلام دولة أنفسهم ورنا مشاهدة صحافة iyo dhammaan soo qaybgalayaasha xafladda qiimaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib waxa aan ku faraxsannahay shirkan iyo xafladani sida loo soo qabaqaabiyey kolley ujeedadu waxay ku qoran tahay boorka waxayna kali waa laga hadli doonaa oo mas'uuliyiinta iyo wasaaradda iyo wasaaradaha ayaa ka hadli doona wixii fikirana ummadda Soomaaliyeed way ka geysan doontaa waxa muhiima oo muuqata runtii oo maaragtay farxada in ummadda Soomaaliyeed hadda ay u muuqato in wadadii dhabihii dowladnimo iyo horumar iyo midnimo أكثر الصاري ومرت تاسو مرت آدي مرتي روح فرحت قليلسة تمرت يمكن كم وقرأ شركة يوكي كل قريب وطاس وأنا سود ويننا فكر كدولة وزارة الربا بدأ
iyo xukuumaddaba waa aad baan u soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa waxaan intaa ku darayaa ummadda Soomaaliyeed waxa maaragtay muhiim ah oo loo baahan yahay in waqti dheer baynu soo marnay oo burburkaana waxaa qayb ka qaatay oo xabihii maaragtay qaybta ka qaatay ka mid ahaa qabyaalad wax la yidhaahdo oo ahaa cudur ku dhacay bulshadeena Soomaaliyeed qabyaaladaas inaynu uga gudubno sida waddadaynu hadda marayno oo aynu maaragtay ku dhisan karno dowladdeennii iyo midnimadeennii iyo soomaalinimadeennii qabyaaladaas oo aad moodo weli in dadka qaar u sii indhataagayaan ama ha noqoto waddanka ama ha noqoto meelo ka baxsanba abaabul qabyaaladeed oo qabyaaladaysan ay xogaa ay maaragtay dad doonayaan inay maaragtay ay muuqdaan waxaa leenahay taas waa in laga waantoobo oo loo gudbo soomaalinimo in soomaalinimo loo gudbo oo soomaalinimadu aynu maaragtay ku qancano waxa aynagu maaragtay ilaanfaco waa soomaalinimada intaas baan ka gaarayaa ummadduna inay wax qorato waa muhiim wixii ay qoratana inay fuliso oo ilaaliso iyaduna waa muhiim waana arrin maaragtay waajiba marka insha allahu tacaala nuxurka maaragtay xafladana waa laga hadli doonaa intaas baan odhanayaa aad iyo aad ugu mahadsantihiin inaan guriga lagu haysan buu yahay heshiiskeenu waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan salaamo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka xildhibaanada iyo golaha wasiirada odayaasha dhaqanka culimaadudiinka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed bulshada rayidka ah iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan muhiimka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib wasaaradda arrimaha gudaha waxaan uga mahad celinaynaa isxilqaanka iyo dadaalka ay ugu jirto dib u soo dhiska iyo dib u nooleynta dowladnimada Soomaaliyeed waxaan kaloo uga mahad celinaynaa had iyo jeer qadarinta ay siiso had iyo jeer qadarinta ay siiso haweenka Soomaaliyeed oo dhexaad u ah bulshada ma dhicin weli shir ay wasaaraddu samaysay oo aan haweenka Soomaaliyeed laga qayb gelin taana waxay ka markhaati kacaysaa sida ay uga go'an tahay wasaaradda inay haweenka Soomaaliyeed xuquuqdooda ilaaliso afkaartooda iyo caqligooda iyo maskaxdooda iyo cilmigoodana looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed shirkan maanta meeshan odayaalku waa fadhiyaan buugna waa ka yeelayaa meesha gabdhuhu fadhiyaan waxa dhaloo ka yeelaayo malaha marka waxaan rajaynayaa in sida gabdhaha oo kale ay isu xilqaantaan oo aad aamustaan oo dhegaysataan afkaartaan iswadaagsanayno shirkan wuxuu ku saabsan yahay daajidinta awood qaybsiga iyo wadatashiga la rabo in bulshada Soomaaliyeed lagala tashado waxaan ognahay ummadda Soomaaliyeed waxay soo martay dhibaato fara badan waxaa ka burburay qarannimadoodii waxaa baaba'ay kalsoonida ay isku qabtay waxay gashay marxalad ay qabto tiiraanyo oo qofna qof uusan aaminsanayn qofna qof taladiisa u dhiiban karin waa inaan marka isbarno in aan u gudubno inaan talada isu dhiibanno inaan dalka ka wada qayb galno in dowladnimada iyo astaanta ummadda Soomaaliyeed ay gaarto guri kasta iyo goob kasta iyo tuulo kasta oo dalka ka mid ah iyadoo la wada jiro in la wada hijiyo qarannimada Soomaaliyeed khaas ahaan dhinaca haddii aan ka hadlo haweenka oo ah qaybaha ugu badan bulshada Soomaaliyeed ahna lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed arrintan aad iyo aad ayay u soo dhaweynayaan haweenka Soomaaliyeed waxay u taagnaayeen dowladnimadii waxay u taagnaayeen burburkii markuu dhacay sidii dibka dalka looga qaadi lahaa ummaddu uga soo talbixi lahayd waxay u taagnaayeen dowladnimada Soomaaliyeed soo noqoshadeeda iyo say u hirgeli lahayd maantana waxay horseed ka yihiin howlaha dalka ka socda sidaa awgeed waxaan aad iyo aad diyaar u nahay
inaan ka qayb galno tallaabo kasta oo la qaadayo oo ku saabsan dhismaha qarannimada Soomaaliyeed iyo baahinta awoodaha dowladda in la daadajiyo. waxaan rabaa in halkaa hal mar aan wax yar kaga darsado sida hadda wasaaradda ku socoto waa si aad iyo aad u miisaaman u cilmiyeysan mas'uuliyad ay ku dheehan tahay oo muujinaysa in la rabo in bulshadu ay hal mar wada jaan qaado oo ay ka qayb gasho sidii dalkan dib loogu hanan lahaa. gabdhuhu ilaa hadda waxay ku nool yihiin xataa meel weli dowladdu aysan gaarin oo ay ku qabaan dhibaatooyin fara badan. meelaha dowladdu ay joogto laftigeeda talada inta badan marka go'aanka kama dambaysta iyo la gaarayo miiska talada kuma badna. inkastoo baarlamaanka ku jirno inkastoo xukuumadda ku jirno haddana waa naloogaga badan yahay. badnaanshahaas naloogaga badan yahay waxay keenaysaa in awoodda dowladnimada iyo fulinta awaamiirta ay leecdo sababtoo ah waa in wixii ay si miisaaman oo cilmiyeysan oo qorshaysan oo istiraatiijiyada ay u wada dhaqaaqaan. sidaa awgeed gabdhuhu goob kasta ay joogaan hadday tahay heer qaran iyo hadday tahay heer dowlad goboleed iyo hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay degmo iyo tuulo waxaan aaminsanahay inay u taagan yihiin mar walbaba talada guud iyo dowladnimada iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay nabad dhexdeeda uga dhalin lahaayeen. sidaa awgeed waxaan wasaaradda ka sii codsanaynaa oo annagoo ogeli dadaalayso oo aan aad ugu faraxsannahay qaabka ay ugu wado in goobaha marka xukunka la daadejinayo in la qadariyo kootada haweenka oo ugu yaraan 30% gabdhuhu xilka gobolka ama dowlad goboleedka ama degmada ama xaafadda ama tuulada ay ka qayb galaan. waayo marka loo daadego hoosba waxaa sii yaraanaysa awoodda talada ay haweenku ku leeyihiin iyo qadarinta laga siiyo inay ka qayb galaan go'aan qaadashada. halkaana waxaa ka muuqanaysa in wixii la rabay inaan qabanno iyo dowladnimada aan rabnay inaan dib u hanano aysan gaarin sida aan ku talagalnay. sidaa awgeed waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa sidii ay sheegtay walaashay Hindi awoodda gabdhaha iyo awoodda bulshada rayidka ah ma aha mid lacag ku fadhida. waa mid u baahan inaad qadariso oo aad siiso fursad ay uga qayb gasho howlaha dalka ka socda. weligood gabdhaha Soomaaliyeed lacag kuma gadanin qarannimada iyo dowladnimada. waxay had iyo jeer u taagnaayeen inay sababtayaan dowladnimada iyo qarannimada. sidaa awgeed inta la kari karo inay gabdhuhu talada ka qayb galaan inaan badino waayo waa meesha Soomaali ay ka saldhigi karto oo ay ka gaari karto qarannimadeeda iyo gobonnimadeeda inay dib u soo ceshato. waa biduun shuruud gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaan inay dowladnimada hirgeliyaan, inay amniga ka shaqeeyaan, inay dib u heshiisiinta ka shaqeeyaan, inay xoogooda iyo xoolahooda iyo dahabkooda u gadaan, naftoodana u huraan si hore ugu dhacday. aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa isxilsaarka ay wasaaraddu isxilsaartay. ilaa waayahan waxaan ku jirnay howlaha wasaaradda arrimaha gudaha ay u fulinayso ummadda Soomaaliyeed. waa idinkugu hambaliyaynaynaa. waxaana noo muuqata inaad tartiib u haranaysaan kalsoonida ay dowladda ummadda Soomaaliyeed ku qabto iyo inay ummaddu hesho fursad sidan oo kale ah inay afkaarteeda iyo taladeeda uga qayb gasho. marka awood laga hadlaayo, marka dib-u-dhis laga hadlaayo, marka amni laga hadlaayo, marka laga hadlaayo dib u heshiisiin. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, xildhibaanada, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir, mas'uuliyiinta kala duwan ee faraha badan, ururka haweenka qaranka, ururada bulshada, isimo, dhaqan, culimo, dhammaan waxgaradka iyo odayaasha siyaasiyiinta, wasaaradaha warfaafinta ama meediyaha. waa la badan yahay lama tirin kale. qolyo waxay yidhaahdaan meelaha degaa qof walba meeshiisa ku salaaman yahay. marka qof kasta meeshiisa ku salaaman yahay haddii aan wax qaldo. nuurna halkan wuxuu igu lahaa waa la isku dhegan yahay salaadii baa joogta. nuuro anagu saaka 2 saac bar baan nimid, shirkuna 3 saac uu furmayaa la yiri. marka anagu waxaan u nimid inaan sheegnaan doonaynaa anagoo toqotaynina. waa maatintii intaa kadib xaqiiqadii waxa weeye inaan marka hore u mahad celino wasaaradda mas'uuliyadeeda
shirar ka wakiil labaad markaan fiiriyeyna waxaan moodaa bishii horena 19 buu hatanna waa 19 marka idaacadaha waxay yidhahdaan qola arbacada ka faashata warbaana si war wasaaraddu si xalaa jiraan bay sirsaaka dhan waa fiirinay intaas waa ay kafta magaca guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka anigoo ku hadlaya mas'uuliyiinta kala duwan ee halka joogta ee ka socota hay-adaha iyo ururada bulshada iyo qaybahaas oo dhan salaan kadib mawduuca maanta halkan aan isugu nimid waa mawduuc aasaasi ah waa mawduuc nolosheenna ku salaysan waa arrin ku salaysan horumarkeenna iyo amnigeenna iyo wax walbaba maxaa marka saldhig u ah waxaynu nidhi astaynta awoodaha heerarka dowladda waa inaan u noqonnaa horta xorriyadda intaynu qaadanay ilaa maanta heerarka astaynta aynu soo marray maxay kala ahaayeen 9 sano hore maxay ahayd 21 sano maxay ahayd 2004 laga soo bilaabo ilaa maanta maxay tahay ilaa xaggee awooddu gaarsiisan tahay waxaa hadda aan is leeyahay wax walba saldhig bay leeyihiin innagu waxaan leenahay dastuurkan qodobka 54 wuxuu qorayaa daadejinta awoodaha iyo awoodaha sida loo qaybsanayo taa markii laga soo tago dalku 3 qaybood ba awoodiisu u qaybsantahay dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka 48 dastuurku wuxuu oranayaa dalku wuxuu leeyahay laba dowladood dowladda federaalka iyo dowladaha federaalka ka mid noqonaya ee dowlad goboleedyada arrintaas sidii aan u hirgelin lahayn iyo dariiqii aan u mari lahayn horta waa loo baahan yahay wasaaradduna waa ku mahadsantahay annagu gobolladaan ka shaqaynaa haddaad maanta weydiiso dad badan oo xilal ka haya dowlad goboleedyada ama gobollada ama meelo badan oo qaranka ah dastuurka qodobka wuxuu sheegayo iyo waxa laga rabo iyo mas'uuliyadda uu leeyahay iyo mabaadi'da federaalka iyo sida wax loo qaybsanayo iyo qaybsiga khayraadka iyo awoodaha iyo amniga iyo ciidamada iyo miisaaniyadaha iyo dhaqaalaha waxay dadka aad uma yaqaaneen ma garanayso inta markaan ii sheego waxay marka u baahan tahay horta marka u horeysa maxaynu wax ku qaybsanaynaa dastuur baa halka yaala dastuurkan iyo 5 dowlad goboleed dasaatiirta ay sameeyeen markaan hayno wuxuu leeyahay dastuurka qodob 48 labadaas uu yeelanayaa awoodaha la kala yeelanayaan muxuu yahay qolo walba awoodaha yeelanaysaa maxay tahay see isu hoos imaanayaan see baa mataqaanaa wax loo kala qaybsanayaa see u xilliyeysan yihiin maxay u leeyahay dowladda federaalku awoodaha ay leedahay maxay tahay 4 qodob baa lagu soo koobay macquul maaha 27 qodob baa laga rabaa in dowladda federaalku ay leedahay dowlad goboleedka hadda meeshan ka dhaana ama maamulka aan dhahan waxay leedahay dastuurku wuxuu u xadeeyay inay ku shaqeyso dowladda hoose ama deegaanada hoosena waxay leedahay mid gaar ah saddexda Nigeria haddaad aragto USA haddaad aragto dowladaha caalamka saddexaad ee ku horay waxna waa kala qaybsan yihiin waa kala degan yihiin dastuur baan saldhig u ah dastuurka dowlad goboleedyada mid baa wuxuu ka kooban yahay 142 qodob dastuurkana 142 qodob ka kooban yahay ma dastuurka federaalka qaranka uu hogaaminaya mise waxa uu hogaaminaya oo barlayla ama kuwa kale hogaaminaya dastuur dowlad goboleed halka markay marayso hadda waxa socota dib u habeynta dastuurka waxay maraysaa aan malaynayaa 15 dhowdhowda wasaaradda dastuurku waa joogtaa maanta haddii aan dastuurka la sixin oo aan maqaamada lagu kala sixin oo aan qolo walba waajibaadka dastuurku ku cadayn ee aan qof kasta Soomaaliya muwaadin kasta waxa laga rabo waajibka iyo waajib waddan ku leeyahay iyo ka leeyahay aan la cadaynin waxa weeye ma gaari karayno cinwaanka halkaa ku qoran ee daadajin wasaaraddu waxay soo bandhigtay tala keena marka inaga taladiino ka baahan yahay maanta shalay dagaalada ka dhacay gobolada dhexe maxaa la isku haystaa haddii uu jiri lahaa qof sharciga ka baqaya ee awood ka baqaya
بوليسكي أودي يوم حكيمتي كبقية ليش كمان كنت اللي بعد متي بتقول هذا الشيء يصير جميع وكاوين ما يدعى عليه وحن مركز أولاً أفرتم قضاء هلك كوكوبان دستور كوريو ما أها أود الدولة فدرالك ويكبر انتهي أود الدولة الفدرالك وحيالا بدن بقى كم عن دستور كايله إنه متقع أن هش أود وحكم إذا مركز هي وين سمعني وحكم إذا حيرك عالمية وحكم إذا عينسك وحكم إذا نظامك تركوبية قرنك وحكم إذا محنك الدلحيسك وحكم إذا دكدها وحكم إذا بندوينك هذا بيفرق بديه وحاس أردن كما قرنا الدستور كان دستور كان واحد قرنا وأفر قبان خلق أفر تأي اللي حدا قضب وحل اللي مكرها محايل كده ذكرنا وإنبوت كان قصة من كرنا محوي يسي وحنا يسو تاجان سيد شن يطوان كشفتر مركو دمادو لو هلو أو ده حل وحلو قيد سنة يوم هير قرن هير دولة يهير ديجان وعين هير ديجان أول عينه قوان نور بقى ماشي يتاجان يسوي وحنا نقول مركو أورا الله وحين كلا حاجة هي من بويس إلى قرن ودستوري دستور كانوا مركز أخرسو مادة ما يسترنا باهيدا يبربر كانوا ما كافين كرو وحن سريا هاي شركة ما تكون معها خبراء ضد سياسيين ضد أقوام له إن مرة بدل الصوب دقي إنت لوني لقيت شيء وحن مركز إننا علينا هاي ما تعرفنا إنا بحنه وترى بحين كانوا نهاي ضلكوا هل دستور بيان كلام لما الدستور يسدح الدستور يأفر الدستور ما يعمل كلام وهذا أنت على تك وسيد الدولة وسعرد أرماء جودها أمر إنه قانوني شو وسيروا أرماء جودها ودولة الصومالية أبى أفرني أنا ما هل ما نوتج مركب حاليا ما يقدر يلبث والدستور كين محقرية وإن الدستور كما تجعلت اللي هو يطلب الله قدرة إن دي وهبين لو سميه إن أود لو كلا حد له أود إن لو كلا عقيل واسكر وحكى له أيام راعية أودها سياسة دي بقليسة أمن جي بقلي دقاليه بقلي حدي عايز الدستور كقو عدين إن دولة أجنبي دلك الصومالي أنت اعتماده هالشيء بقشوا وعيدا كنتو ومراكب كنتو وسياسة دي بحقشوا ما شقينيسو مركز الدولة شده قليل دولة بدن بقى وحي كده دالان أيقو الدستور كان يقانا إن أي أبوران ضد سياسيين يبري صباح دولة ده هذا ترتلح دولة مركز ترتبها على قبل هذا محامك الدستور كان دولة قبل اليوم أود وسين كريم يتن دولة فدرال كان مكة لحددنا ما عدا أنا واحد سوتشي إنه يكسو كوريا أنا واحد بشكلنا حدوده يسودمه حقيقة دي مكة أني شيء حدودها يسودمها قبل كبنات الحجان كسياسة نوات شوقات وحبا يبقى أنت هاي ثلاثة ما أنت إلا قد أبا عنشورنا لما قاعد كم في كل سجال بقول لحنا يسدح كل سجال بقول لحنا يسدح اللح يطبنكي أغسطس ديسمبر وحلا سنة شرعي لهذا اللون نمبر 19 شرعي قاسي وشرعي جوهرية السكان ككونفورية وقوي إلا ما أنت تضبط يطبن شرعي بهذا اللي هي واحد قدام بشرعي 11 لح وسارت أرينا جودة زوج ساعتين لابد يكون يسدح يطبنك أستيت أولها الدولة ده هو سيء ما من دولين المقعدين وحلا سوسة على اللون نمبر 5 وحلا سوسة على اللون نمبر 6 كنتم يكون وحوي أريمها سوق نبى واحد بقى أنت تدب له بنقضه إن أينه هلا واحد كليه إن كل حد إن حدين كلا واحد حقوق يبسم كرنا واحد يسكو احترامي كرنا واحد أود إن الصومالي إنه يقرن لكم بتشكرنا والدستور دستور كان لو قدامه وإحنا اللي جاب الدولة لصحة لو بيوم ناسين كل يوم مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوزير أديك وزارة هذا وحان إذا كمان علنا كل كان آد كمدين هو مشروع الصوماليين وآد صوم وقابسات يسير آد
usoo bandhigaysaan barnaamijyada taageeraya qaranimada Soomaaliya iyo dowladnimadeeda. aad iyo aad aan kaga mahadcelinaynaa. muhiimadda kulankan wadatashiga uu leeyahay geedi socodka dowladnimada Soomaaliya waxaa weeye inuu kala caddeeyo heerarka kala duwan madaxda ama federaalka ama dowlad goboleedyada sida ay u kala leeyihiin mas-uuliyadaha. runtiina waxaan u arkaa inay tahay bilow fiican. annaga gobolka banaadirna ay noo tahay fursad gaar ah oo aan talooyinkeena iyo ra'yigeena ku biirinayno qorshaha halkan maanta aan ku furayno. aad iyo aad aan runtii usoo dhaweynaya. runtii waxaan maalin walba aragnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo madaxweyneyaal gobollo iyo mid federaal intaba. halkan waxaa nala jooga wasiirada federaalka. marka magaca la fiirsho wasiirada kale iyo madaxweyneyaasha kulli waa laga wada siman yahay. marka waxaan u baahannahay in horta la kala asteeyo ayna jiraan wax lagu kala duwan yahay. adduunka ma jiro dal 10 madaxweyne leh oo 10 calan iyo 10 astaan loo wada garaacayo meel ka jirta ma jirto. marka runtii kolley waa bilow waxaan inay tahay bilow fiican. adduunkana waxaa lagu maamulaa ama lagu dhaqmaa qaabab ka duwan sida annaga aan maaragtay hadda ugu isticmaalno awoodaha ama maaragtay magacyada kala duwan ee gobollada iyo federaalka waa ka wada isticmaala. dalkan wuxuu leeyahay hal madaxweyne, wuxuu leeyahay hal calan. runtiina waxay ku fiican tahay magacyada noocaasa inuu waddanku hal qof u asteeyo. inta kalena ay jiraan waxyaaba because markii la soo hor fadhiisto waa inay jirtaa wax lagu kala duwan yahay. aniga iyo wasiirada hadda waa kala duwanahay. wasiirka arrimaha gudaha gobolka markuu yimaado wasiirka arrimaha gudaha federaalka waa iska daba dhow yahay. marka aad iyo aad aan kusoo dhaweynaa runtii kulankan muhiimad gaarana waa u leeyahay gobolka banaadir bacdama annagu hadda aan ka duwannahay dowlad goboleedyada wasiiro iyo aan isticmaalin welina aanan gaarin heer aan maamul goboleed noqon. laakiin aan isku aragno inaan hadda ka daba dhownahay. aad iyo aad wasaaradda si gaar ah u mahadcelinaynaa kulamada iyo barnaamijyada wadatashiga ah oo ay door gaara ay siiso gobolka banaadir. waxaan ka codsanayaa wakiilada ka socda gobolka banaadir ee halkan jooga inay talooyinkooda wax ku oolka ah inay ku biiriyaan bacdama ay matalayaan 17 degmo ee gobolka banaadir. wax u qalbo gobolka banaadir iyo aragtida hadda aan idiin sheegay diganta iyo wax kale ka si fiican oo ku daraysaan inaan ku biirisaan ay soo jeedinayaan 17 degmo. وبعد وزير كرمها جودة وزير كويلين كرمها جودة وزير دولة كرمها جودة وزير كويلين كشغلي شغالة البارة فضل على ودون كيجين قبل البلد وايلو لكن هذا ميلو وسلام يا وما يسوى شيء. haweenka gudoomiyaha arday haweenka qaranka odayaasha dhaqanka dhallinyarada arrimaha bulshada warbaahinta wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan waxaan salaamay salaamullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. guddiga wadoodan waa dadka iraan haranaada guddiga wadoodan waa ilo weyraan hada inay saayibka ay jooga isagana guddiga wadoodan waa salaamay guddiga higeenka. marka maanta dhan waxaad dhegaysanayseen af maxaad tira dhegaysanayseen. marka haddana inay dhegaysataan waa af mayama inay dhegaysataan waa af mayamaya hadama. marka إلى ما سنتين وزارة الربا جودها مرتقات يا أرض كان كل شيء مرتقات يا إلى كما سنت ولا الباهين يعني ده كله بقى الجليون
لين شاغو وليوم باهي لين شاغو لين كدقون إلى أرض كما سنت لكن شيء كما جاء بلا أوتو ويجريد هذا ود أما شيء جاء المدرسة هذا ود إني أرض فول الفضاء بالشرط إن الله هلا من الكفول إن الله الأرض مركز دالكي ولي ترى مسا ميري لكفول الله هاي أول باهنا يبشر تيجي كدير سيلها أمن درجة مركز مدام أمن درجة تولياركي دعمويكي قبل الذي من الفضل سيركم أرتدي عاصمة الكوكيو ومتى عاصمة الكوكي إيران فيلته كل ولي تاوية هتيجي أرضي ولي قبل هذا قبل هذا الدولة بهوس قوية اللي سووا ما يتاوية سومر اللي كنا نتايا تاوية إن شاء الله تعالى وزارة دنا شغل يود قربا كسيان وان كما سيان كما سنت إن شاء الله تعالى وان سديد معلومات سنتفق ديران والبدنا يكشف ويسودان تاسنا ين حتى ويان متى قالت فدرال كم بكيور ونفيلية كارني دتكو على دو صوت ويس دجاجو دجالي مرفلا لا دتكو صوت ويس دجاجو ولي تاوي أنا مديور فدرال أنا جاي لكن فدرال هو الفيل معي فدرال كم بيننا كذا والناس كده عوانا دبليش اللي ما ده مشان أغير راسي ورا معي فدرال اللي ماشي لبش اللي هو هجلي وليها ورك مدها أرتم مدهوين يا أكتر بدن عليه مدهوينا ما اللي فضاء مدهوينا هذا أرض مدهوينا فضاء خلنا مدهوينا سوماليا حلو ميلا تقدم هذا أرض الشكل جماعة في مركز هذا وحيابان كاليابي ومطلون الياب تما كمدها مدهوين هبل مركز أرض هذا أيضا إني أرتوى لكم بدل وزارة دارما جودا إني ولكم بدل مدهوينيال كاسترد بدني ولكم بدل برلمان كان كرشة قايد أنا إني مجا هويتي دورت إني مجا صوبدو لما لا إني نظام الصوب صدا والملك جرو لكن إني أرد أبوده إني شرقي بده مدهوينيال كان إني مجا بدلو حقيقة أقولنا إني أرد إني صوبي تاسا قوله متى قالت إني أرد النظام كي تقوم بالعوضي هذا وزارة دارما جودان مناك هدك تيسين كشكاين دونتان إني للدرسي قبلني دعمويكي إلى توليا ميل هالكاس مدرسيو وردي للدرسي كور إني سندرسي دان تالنا الدرسي كبعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا أنتي سبدن ولا هلا نحر كنا ولا أوجاده waxaan leedahay saddex maalmood oo qof kasto fikirkiisa iyo aragtidiisa ku biiriyo Soomaali hadanahay ma aha dad oo hadda soo kaceen ama cayayaan aan ahayn markii hore ama duurka aan ku nooleen ma aha waa dawlad jirta oo dhowr sanadood socotay la maamuli jiray awood la kala garan jiray hadda dibkana haasto ma naqaan وإن دب لو صار نقضه قف كاستمركو استاجو حليه هاي دستور كما دمسترنا يا نقر الدستور كان هدي أنا كأنسك قرنا دستور كان أنا دب ونقنا سفي عنو ساقرنا هدي دت كلا أي نص ساقرين دستور كا إن لو لابتو محاسس لو قرأ أما قلت كاس بحاجة because خبرة أنا كإسكالينا هاي أو سنة بدن لصور دافع أو دولة أنجرنا إلا أحد وكل أبان كرنا خبرة ظهر وسوق هذا كرنا يو دوكيمنتي يو وراقدن ولا سوقره ودي بقولكم كرنا أما خبرة ودمدا كله ودمدا جارته أما عالم كذا والو لكم كرا ما أحد وقت دستورك ما أحد وقت خبرة الآن دت أوتيسنا نهاي عيدا ولينا هاي دت خبرة ولينا هاي دت متعلمين ولينا هاي وحنا يقلدن إنا أوغانو marka ogaano waxna ay qaldan yahay markaas oo ogaana solution wala heli karaa ani waxa isleeyahay in saddex arimood oo isku taxan yihiin arinka koowaad waxa way al akhlaaq waxaad heli karnaa sulta marka helno watana helena
laakiin akhlaaq daradu markay akhlaaq haddaan jirin sulto ma heli karno awood ma yeelan karno wadanna ma heli karno marka in dib loo soo noqdo qof kasto inuu ka fikiro ana qaldan ma aha walaalkii inuu qaldan yahay ma aha qof kasto waxa waa hebel qaldan maamul goboleed dowladda federaalka waxay leedahay maamul goboleed way qaldan yihiin maamul goboleedna waxay leedahay dowladda federaalka ay qaldan tahay qof kasta oo qaladka asaga isaara ma arkaysid marka waxaan rabnaa inaan dib u soo laabano aan ogaano qaladka aan ilaahay ka galnay maxaa waa marka waxa waaye muhiimadda waxa waaye saan arkay relation kayna xiriirigeena anaka ilaahay waa naga maqan yahay because anaka markasto xaq ilaahay waan hormarina iyo xaq bani aadamna dib u dhigeena qofka bani aadamka hadaad bani aadam qalad ka gashid ilaahay ma ku cafina illa bani aadamkaas inuu ku cafiyo laakiin ilaahay hadii aad qalad ka gashid uu ku cafina waxaa jiro mabda oo la dhaho حق الله مبني على المسامحة حقوق ذا إلهي ومسامحة بالو أسلسة مع الإلهي حتى هداك قلدتت لكن هدب هذا أصول لابتت وهو عافنا بني آدم هذا قلد كجشد أنت كدم مناسد قلد كاس إلا أسألك هو عافيه أما حقي سئنا دو على سد مركز له عافنا مركز إن شاء الله قف كستو فكر كيسين وكبيريو أو صد على المالمود ونقول في الانتهاء إن شاء الله هذا وما سنتهين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وريال مرتبة هل كان كجوكتا قولها وزير ردا iyo labada aqal ee baarlamaanka dhammaan ururada bulshada aan u hormariyo ururka haweenka Soomaaliyeed batuuro waa hadashay xiriirka ay sheegtaan naga dhaxeeya annaga iyo ururka mas'uuliyiinta gobolka Banaadir dhammaan culimada dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka soo qayb galay cid walba oo meeshaan fadhisa مسؤوليتنا البروتوكول كذا ميديا دارون كتجين دمان وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii waxaan dareemayaa mowduuca maanta noo yaala in wax laga yiraahdo in fiican waxaa ka yiri gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuduudaha Xuseen Xaashim laguma fogaan karo oo mid dhamaanaya maaha waxaan rabaa marka inaan ka bilaabo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta mas'uuliyadaha lagu aaminay oo xukuumaddu ay ka sugayso waxaa ka mid ah federaaleynta dalka federaaleynta waa mowduuc aad u ballaaran federaaleyntu waa howl waddankan u cusub oo annagoo baranayna federaaleyntu waxay tahay haddana ka shaqaynayna inaan hirgelino wasaaraddu waxay u xil saaran tahay marka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta inay ka shaqayso siyaasadaha shuruucda iyo waxa laala iyo wixii howl la xiriira ee ku saabsan dejinta qorshaha federaalka iyo hirgelintiisa sidaad la socotaan waxaa la soo sameeyey walilaahi hadda joognaa ilaa iyo intii ku meel gaar aan soo marnay iyo intaan aan soo galnay dowlad rasmiyaba qolo walba waxbay soo kordhisay waxaan maanta joognaa in dowlad goboleedyadii oo dhan ay noo dhisan yihiin weli ay noo laalan tahay maqaamkii magaalo madaxda caasimadda dalka Soomaaliya oo iyadana gacanta lagu hayo howlaha wasaaradda laga sugaayana ka mid arrinka maanta aan isugu nimid waa wada tashi waxaan ka wada tashanaynaa mowduuca meesha noogu qoran asteynta awoodaha heerarka
dowladda. Intaanan astaynta aadin awoodahan rabaa wax yar inaan ka dhaco. Awoodaha markaan ka hadlayno awooduhu waxay ku qeexan yihiin mas'uuliyado. Mas'uuliyaduhu maxay yihiin? waa mas'uuliyadihii lagu bixin lahaa adeega ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay u baahan tahay. Ceel xoolo ka cabaan ilaa iyo magaalo madax inta ku nool oo Soomaaliya khadamaadka ay u baahan yihiin in la bixiyo ay mas'uuliyadahaas ku aadan. maxaa asaas looga dhigayaa marka? waxaa asaas looga dhigayaa war mas'uuliyad walba oo la sheego, awood walba oo aan sheegno, waxaan u baahannahay inaan dhigno meel la yiraahdo waa awood federaal, sida hadda gudoomiyuhu u sheegaya ama loo yiraahdo marka qodobka dastuurku sheegaya labada awoodood kaliya la raaco. awood federaal iyo awood dowlad goboleed, oo dowlad goboleedka ay hoos imaan doonaan degmooyinkii, tuulooyinkii iyo wixii ka sii hooseeya oo degaan bini aadana. walaalayaal, qaybtaas marka la galayo, marka la yiraahdo intaasay leedahay federaal, intaasuu leeyahay dowlad goboleed, intaasay leedahay degmo iyo wixii ka sii dambeeya, waxaa meesha ku jirta in la yiraahdo meesha la dhigaayo awooddaas mas'uuliyadda ka ratibmi doonta yaa u fulin kara sida ugu dhow dadka Soomaaliyeed oo loo samaynayo adeegaas. xaggee ugu fiican oo ay ka fuli kartaa? waxaa imaan doona awoodo iyo mas'uuliyado dowladda federaalka kaliya ay ka shaqayn karto. waxaa imaan doona awoodo iyo mas'uuliyado ku fiican inta dowlad goboleed oo samaynay iyo gobolka Banaadir inay ka fulaan. kuwa laga sii hoos marin ayaa imaan doona. mas'uuliyadahaas waxaa lagu dhisayaa meesha sida ugu wanaagsan ay uga fuli karaan iyo cidda sida ugu fiican ugu fulin karta si loo gaarsiiyo dadweynaha Soomaaliyeed khadamaadka ay u baahan yihiin. waxaan rabaa tusaale yar inaan gadaal ugu laabto. sheekona dhex martay dad aqoon-yahanaa oo aan muddo sii horreysay waxyaabahaas arrimaha Soomaalida oo laga walaacayo looga sheekaysto aan ka hadlayno. ninaa wuxuu yidhi war aniga waxaan ka imid degmada Hablaayo, degmo fog oo xamar aad uga fog. waxaan ka imid gobol hebel, gobol aad u fog oo xamar ka fog. waxaan soo gaaray oo yidhi indhaha ku kala qaaday, ma baasaboor baan rabtaa? haa. xamar aad. ma laysanis ganacsiyaa rabtaa? haa. xamar aad. ma laysaniskii baabuurka lagu wadaayaa rabtaa? haa. xamar aad. ninkii wax badan intuu tiriyo wuxuu yidhi wax nala gaarsiiyo oo yidhi haddaad rabto wicitaan caalamiya inaad samayso xamar aad in la yidhaahdo, oo meel aad koor international ka samayn karto oo aan xamar hayna aysan jirin. dareenka noocaasihi dadka Soomaaliyeed wuxuu geliyey inay dalbaan, xaqna ay u leeyihiin inay yiraahdaan adeegyada hana loo soo dhaweeyo. adeegyadii, mas'uuliyadihii iyo awoodihii ka ratib maayo waayo waxaan ka hadlayno hadda maanta ka hadlayno. waxaan idinkugu yeernay dadka faraha badan, mas'uuliyiinta faraha badan oo hoolka ku jira, inaad ka ra'yi dhiibataan wada tashiyaanna, inaad ka ra'yi dhiibataan sida ay ku fiican tahay qaybinta awoodaha heerarka dowladda. wada tashiga laga samaynayo arrimahaas kuma eka kan, waa ka ballaarnaan doonaa. waxaan isleeyahay dadka hoolkan ku jira sharafay u tahay inay noqdaan tiimkii ugu horreeyey oo wax laga weydiiyo wada tashiga noocaas.
waxaan rabaa inaan idhaahdo sida guddoomiye xuseen uu u sheegay xuseen xaashi dastuuraa noo yaala 2012 aan ansixiyey I think bishii August waxaa la yidhi waa ku meel gaar wuxuu u baahan yahay in la toostoosiyo aad iyo aaday u habboonayd in dastuurkaas looga tago in la yidhaahdo wixii dambe u baahano waa ka toosinaynaa toosintii aan ku jirnaa mashruucaan la yidhaahdo awood wadaagga markuu dhammaado waxaa ka soo baxoo go'aanaa dib u eegista dastuurka lagu dari doonaa waxa dastuurka laga bedelayaa lagu dari doonaa waxaad la socotaan hadda dastuurkan ku meel gaarka oo jira wuxuu sheegayaa 4 awoodood oo ay leedahay dowladda federaalka aad uma qeexna awoodahaasi waana tan keentay maanta in idinka oo bulshadii Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ka mid ah in la idin hordhigo leedahay see wax la yeelaa nagama dhammaan dokumentiga la yiraahdo dastuurka waxaa la yiraahdaa waa documenti nool oo macnaheedu yahay mar walba oo la joogo waxaa imaan doona arrimo u baahan in inta dib loo fiiriyo la yiraahdo qodobkii saas ahaayoo dastuurka loogu hurnaa lagama maarmo in wax laga bedelo duruufahan daraaddood waa la bedelaa annaga keenu hadda waa tijaabo markii hore aan ba ku ballanay inuu tijaabo nooyo waxaan rabaa walaalayaal khibradda ku jirta mas'uuliyiinta iyo bulshada maanta meeshaan joogta dhalinyarada iyo aqoon-yahanada iyo culummada dhinac walba in inta laga fiiriyo wada tashigaan ay ka soo baxdo sida ugu fiican oo aan awoodahaas u qaybin karno waa laydinkaga dambayn doonaa waa la sii wadwadi doonaa waxaa la geyn doonaa golayaashii waddankan mas-uuliyadda u hayay oo golo wasiiro iyo golo baarlamaan iyo golo senat lahaa way suurowdaa inkastoo qorshahaas hadda calaamaysnayn mar kale inuu idinku soo noqdo la yidhaahdo wixii la wadiyo meeshaana la keenay maxay idinla tahay ma lagu gabagabeeyaa mase waxbaa idinkala jira walaalayaal ujeeddada aan u nimid waa saas mas-uuliyiinta farsamo yaqaanada waaxyaha dadka madaxda ka ah la taliyayaasha wasaaraddu barnaamijkaas way soo diyaariyeen waxay rabaan inay idinla wadaagaan waxaan idinka codsanaynaa inaad awood gelisaan arrimaha masiiriga oo lagu soo bandhigayo mowduucan